hooyooyinka qaar ma istaahilaan in la dhaho magaca hooyo. Qisadeenna intaynaan gudagelin, fadlan subscribe saar channelkeena cusub si aynu gaarsiino 1000 subscribe. Gambaleelkana furo si aad ula socotid fiideo walba oo cusub oo aan soo gelino kanaalka. Like saar, siina share garee si aad u gaarsiisid asxaabtaada. Dhammaadkii 2020 ee bilowgii koroonaha, qisadan waxay ka dhacday dalka UK, gaar ahaan magaalada Birmingham. Waxaa ku noolayd hooyada la dhaho Nicola. Hooyadan waa 23 jir, haysata gabadh yar oo 3 jir ah oo la dhaho Kylie. Waxaynu garanaynaa waqtigii koroonaha ee karantiilka lagu jiray. Hooyada Nicola waxay si xooggan uga soo muuqatay barta TikTok-ga, iyadoo la dheelaysa, la ciyaaraysa, la heesaysa gabadheeda Kylie. Dabcan waa dhaqankii reer galbeedka. Hooyadan waxay lahayd saaxiib lagu magacaabo Malcolm waa 22 jir. Waxa uu yimaadaa hooyadan single mother-ka ah waqti ilaa waqti, yacni marmarka qaar, ilaa la soo dejiyey karantiilkii buuxay. Sidaas oo kula degay hooyadan iyo gabadheeda. Maalin ka mid a maalmaha ayay hooyada Nicola wacatay booliiska, waxayna u sheegtay in gabadheedii yarayda Kylie ay uma tagayso si aan caadi ahayn, ilaa ay ku dhowaatayba ay sirirto ama bakhtido. Booliisku ma ay rumaysan sababo badan awgeed, waxaana ka mid ah inay la yaabeen in hooyadan ay la soo hadashay booliiska oo aysan la soo hadal qaybta gargaarka degdega ah. Talabaadee, gabadhii ka qabatay telefoonka waxay sheegtay inay hooyadan ula hadlaysay si caadi ah oo u eegba gabadhayna waxba ka hadlaysnayn, keergaraynin, normal ah. Boolisku waxay weydiiyey sababta uu wax ugu qaban waayey wiilkan gabadha yar, isagoo arkaya inay hortiisa kuma tagayso ku sirirayso. Runtii waxaa ugu jawaabay, waan baqay, mana fahmayn waxa dhacaya. Hooyadii sidoo kale waxa ugu jawaabtay sidaasi la mid ah. Kadib askartii waxay bilowday inay gabadhii yarayd baadhaan, waxayna ka heleen nabaro culus oo jidhkeeda soo gaadhay. Waxa kaloo ka heleen jajabyo hore iyo madmadow jidhkeeda ku yaala qoorta, caloosha. Waxay weydiiyeen hooyadii dhashay gabadhan, waxayna ugu jawaabtay in ay gabadha ku yaalla nabar keliyata. Nabarkaas ay og tahay una hayso caddayn si ay warqaddii ay ku geysay dhakhtarka. Booliiskii runtii uma ahayn caddayn dhammaystiran oy soo hordhigaan gabadha iyo wiilkan, waayna iska sii daayeen. Kabacdi Nicola waxay bilowday in ay soo boosti garayso, nabadgelyo ku sugnow, gabadhaydii inta ku hadhay. Waxaa kaloo sheegtay inay ka xun tahay inay noqotay hooyo aan dhammaystirnayn, waxaana bilowday fiidiyoyadeedii sidii qof aan waxbaba ka hadlaysmin. Intaa ka bacdi, wada fadhigii saddexaad, booliiskii waxa u yeedheen gabadhii iyo saaxiibkeed, waxayna weydiiyeen saaxiibkeed in hooyadan si xun ula dhaqmi jirtay gabadheeda, jirdili jirtay. Waxaana ugu jawaabay, waxa aan ku toosay maalin qaylada gabadha, waxaanan u soo baxay gabadha yar, waxaanan arkay hooyadeed oo si xun oo xad-dhaaf u dilaysa gabadha yar. Waan la yaabay, waxna runtii kama qaban karin. Waxaa sidoo kale la weydiiyey hooyadii dhashay gabadha yar, waxayna iyaduna ugu jawaabtay sidii si la mid oo kale. Waxay tiri, waxaan arkay Malcolm oo dilaya gabadhayda, weliba si xad-dhaaf u dilaya, waanan argagaxay, kamana qaban karayn gabadhayda. Booliiskii halkaa waxaa ka furay tallaabo saddexaad, waxaanuu bilaabay inuu ku sii cadaadiyo
gabadhii iyo saaxiibkeed inay runta sheegaan. Sidoo kale waxaa wax laga weydiiyey jaarkooda. Waxay sheegeen inay maqli jireen hanjabaadyo sida maxaan kuu keenay oo kale iyo waxyaabo culculus oo ku dhacaya gabadha yar. Deetana ay maqli jireen oohinta gabadha yar. Ugu dambeyn hooyadii waxay sheegtay maalinkii ugu dambeysay gabadha yar inay waqti fiican wada qaadanayeen saaxiibkeeda. Kabacdi ay tayar bilowday inay ciyaarto, qaylqayliso, kadibna ay hooyadii xanaaqdo una baxda gabadheedii soona disho si xooga. Marka ay ku soo laabatay hooyadii saaxiibkeed, ilan waa ciyaalaya tiyaray soo daba caratay tii oo ooyeysa. Kabacdi saaxiibkeed baa xanaaq oo u dilay si aan caadi ahayn hooyadeedoo arkaysa. Hooyadii ma ay jixin iyadoo sidii u xanaaqsan. Waxay iyaduna xoog u dishay gabadheedii iyadoo leh maxaan kuu keenay, maxaa nolosheeda ku soo geliyey, ilaa ay tiyaray matag bilowday. Matagaasina uu sababay inuu naqasku ku dhago. Ilan waa qof yare maxamilaysa waxaasoo culaysa ama garaaco ku dhacaya, sidiina ku dhimatay. Waxay maxkamadda dalkaasi ku xukuntay hooyadaas Nicola iyo saaxiibkeed xukunkaasoo ah in iyada lagu xukumo 15 sano isagana 14 sano. Runtii may istaahilaan xukunka. Fadlan ra'yigiina igula soo wadaaga commentiga. Subscribe saara channelka, like, share. Ha ilaawina sidoo kale inaad commentiga ku soo qortaan qisooyinka jeceshiin inaad la wadaago.